daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films channel oo idiin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan iyo sheekooyinka qiirada leh ee aan ku soo qaadano aktarada shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya. barnaamijyada ka baxa saxafi films alaaba waxaynu ku soo qaadanaa oo aynu kaga sheekaynaa jilayaasha shirkadda Bollywood hadday ahaan lahaayeen aktarada ama baatirishooyinka laadiriinta producerada iyo dhamaanba dadka ka shaqeeya shirkadaha filimada ee dalkaasi Hindiya ka soo jeeda. daawadayaal alaaba waxaynu kaga sheekaynaa dhacdooyinka ay la kulmaan jilayaashaasi. hayeeshee barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkayga hore waxa aynu ku soo qaadanay aktarada marsada make-upka. hayeeshee barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa aktarishooyinka isticmaala make-upka iyo farqiga u dhaxeeya muuqaaladooda marka ay marsan yihiin make-upka ama turkada wajiyada la mariyo marka ay filinka jilayaan ama filinka laga duubayo iyo marka aysan marsanayn oo wajigooda caadiga u yahay. waxaana farqigaasi uu yahay farqi aad oo ay aad u kala duwan yihiin. daawadayaal atirishooyinka aynu ku soo qaadanayno waa 10 atirisho oo kamid ah jilayaasha Bollywood kuwooda ugu cadcad ama xidigaha ugu sareeya ee filimada sameeya. atirishada koowaad ee aynu barnaamijka ku soo qaadanayna daawadayaal waxa ay noqonaysaa atirishada caanka ee Jacqueline Fernandez ee ka soo jeeda dalkaasi Sri Lanka balse ka shaqeysa shirkadda Bollywood ee filimada sameeyay ee dalkaasi Hindiya. Jacqueline Fernandez waxa ay kamid tahay atirishooyinka make-upka aadka u qurxoon wajigeeda la mariyo ka hor inta aan filimka laga duubin. muuqaalka idin muuqda waxa aad ka dheehan kartaan ama ka garan kartaan farqiga inta uu leeyahay marka ay isticmaasho atirishadan make-upka iyo marka aysan isticmaalin. daawadayaal atirishada sadan halka kaga gudba Jacqueline Fernandez waxa aan kala soo qaadanaynaa atirishada caanka ee Sonakshi Sinha. Sonakshi Sinha oo kamid ah xidigaha Bollywood-ka ama Bollywood stars ee filimada ka sameeya dalkaasi Hindiya waxa ay kamid tahay atirishooyinka make-upka isticmaala oo wajigeeda mariya ka hor inta aanan filimada laga duubin. Sonakshi Sinha muuqaalkeeda marka ay marsan tahay make-upka iyo without make-upka farqiga u dhaxeeya waxa uu yahay mid ka haatan idin muuqda. taasna waxa ay sababtaa in muuqaalada Sonakshi Sinha ay noqdaan muuqaalo aad u qurux badan marka ay filimka duubto oo dunida loo soo bandhigo. haddaan daawadayaal Sonakshi Sinha intaasi kaga gudbo waxaan soo qaadanayaa atirishada daada yar ee Sonam Kapoor. Sonam Kapoor waa gabadha uu dhalay jiraaga caanka ee Anil Kapoor ee fanka muddada dheer ku jiray. waana gabadha ay ilmaadeerka yihiin Ranbir Kapoor oo ka tirsan shirkadda Bollywood ee filimada sameeyay ee dalkaasi Hindiya. haddaba Sonam Kapoor waxa ay kamid tahay jilayaasha isticmaala make-upka ama wajiga waxyaabaha lagu qurxiyo oo dhalaaliya ka hor inta aanan muuqaalada laga duubin. hayeeshee muxuu yahay muuqaalka u dhaxeeya farqiga ka soo baxaya marka ay marsan tahay make-upka iyo marka aanan loo marin. daawadayaal barnaamijka waxa aad ku daawanaysaan Sonam Kapoor oo aad u dhalaalaysa iyo marxooga muuqaalkeeda uu dhab yahay oo uu mugdi ku jiro oo aysan marsanayn wax la yiraahdo haba yaraatee make-up. haddaan inta kaga gudbo waxa aan barnaamijka ku soo qaadanayaa atirishada daada yar ee xidigta Bollywood ee Alia Bhatt. Alia Bhatt oo dhalay Mahesh Bhatt oo kamid ah producerada ama film sameeyayaasha shirkadda Bollywood kuwooda ugu caansan ahna gabadha ay wada dhasheen Pooja Bhatt oo ay isku aaba yihiin balse aysan isku hooyo ahayn. waxa ay kamid tahay jilayaasha Bollywood xidigaha haatana waxa ay haysataa atirishada ugu wanaagsan Best Actress 2017. atirishadan waxa ay marsan tahay sawirada idin muuqda mid kamid ah waa xilli ay ku jirto duubis filin marna waa maray caadi ahayd oo muuqaal laga soo qaaday. haddaba waxa ku soo baxaya farqiga u dhaxeeya marka Alia Bhatt ay marsan tahay make-upka iyo marka aysan marsanayn. daawadayaal haddaan inta kaga gudbo jilaayada daada yar ee Alia Bhatt waxa aan soo qaadanaynaa Parineeta Chopra. Parineeta Chopra oo kamid ah xidigaha Bollywood-ka ahna gabadha ay ilma adeerka yihiin Priyanka Chopra waxa ay kamid tahay atirishooyinka ugu muuqaalada wanaagsan marka ay filimka dhigayaan. hayeeshee taasi waxa sabab ah make-upka ama turkooyinka wajigeeda la mariyo oo ka dhiga qof aad u qurxoon Parineeta Chopra. hayeeshee muuqaalka kale ee aad aragtaan idin muuqda waa isna iyadoo aanan marsanayn wax make-up ah. waxaana kaaga soo baxaya farqiga u dhaxeeya marka ay marsan tahay qofka make-up iyo without make-up. daawadayaal haddaan inta kaga gudbo jilaaga Parineeta Chopra waxa aan ku xujinayaa in adeerteed Priyanka Chopra oo ahayd Mrs India iyo Mrs World kuna guuleysatay quruxda dunida. waa Priyanka Chopra waxa ay isticmaashaa marka ay filimada duubayso ama laga duubayo make-up ama turkooyinka wajiga lagu qurxiyo. Priyanka Chopra farqi aad u weyn ayaa ka soo baxaya muuqaaladeeda maadaama midabkeeda dhabta uu yahay midab xoogaa iska
marina balse marka makeup la mariyo uu noqonayo midab aad u cad ama white ah sida muuqaalada dadka Irishka ah. haddaba Priyanka Chopra waxaa lagu tiriyaa atriishooyinka aadka u isticmaala makeup-ka ilaaliyana wejigooda in uusan marnaba yeelan waxa loo yaqaan dufanka ama badhididka si muuqaaladooda ay u noqdaan muuqaal aad u sareeya. daawadayaal haddaan intaa kaga gudbo Priyanka Chopra waxa aan ku xujinayaa atriishada caanka ee Anushka Sharma. Anushka Sharma oo kamid ah xidigaha Bollywood-ka ee dalkaasi Hindiya filimada ka sameeya waxa ay kamid tahay xidigaha ugu wanaagsan uguna muuqaalada qurxoon ee filimada ka dhiga dalkaasi. ha yeeshee muuqaalka idin muuqda waa laba muuqaal oo aad u kala duwan. marna waxa ay marsan tahay make-upkii iyo turukadii loogu talagalay in qofka wejigiisa lagu qurxiyo ka hor inta aanan duubitaanka amaba muuqaal qabashada qaybteeda aysan bilaaban. muuqaalka dhanka kalena waa muuqaal iyadoo caadi ah oo xaafad jooga amaba suuqeeda maraysa laga soo qaaday. waxaana halkaasi ka cad in uu u dhaxeeyo farqi aad u weyn wejigeeda marka ay isticmaashay make-upka iyo marka aysan marsanayn. daawadayaal haddaan intaa kaga gudbo atriishada caanka ee Anushka Sharma waxa aan soo qaadanayaa atriishada daayar kana mid ah xidigaha Bollywood-ka kuwada ugu cadcad waa Deepika Padukone. Deepika Padukone oo haatan Bollywood iyo Hollywood stars labadaba kamid ah oo filimkeedii ugu horeeyay ka dhigtay dalkaasi Mareykanka Triple X oo ay la waday oo ay la daadihineysay Van Diesel. waxa ay kamid tahay atriishooyinka ugu qurxoon qaab jilinadoodana ay kamid yihiin kuwa aadka ugu wanaagsan laakiin waa marka ay marsan tahay make-upka amaba turukada wejigeeda la mariyo. balse marka aysan marsaneyn waa ay idin muuqataa Deepika Padukone iyo farqiga u dhaxeeya marka la turukeeyo iyo marka aan la turukeynin oo naashnaashka iyo qasrigaba hablaha Soomaaliyeed waa ay isticmaalaan oo alaaba waxaad arkaysaa iyada oo suuqa kaga soo adeeganaysa. taasi kula yaabi mayno atriishooyinka Bollywood-ka ee wax dunida dhammaan ay ka sameeyeen. haddaan intaa kaga gudbo atriishada Deepika Padukone waxa aan ku xujinaynaa Sonal Leon. Sonal Leon oo kamid ah atriishooyinka Bollywood-ka ahayna atriisho haysata dhalashada dalkaasi Canada kana mid ah jilayaasha filimada ku sameeyay dalkaasi Mareykanka balse markii dambe ku soo biiray Bollywood-ka iyo dalkeedii hooyo ee u dhalatay. Sonal Leon waxa ay kamid tahay atriishooyinka isticmaala make-upka marka aysan make-upka marsanayn iyo marka ay u marsan tahay. waxaa idin muuqata daawadayaal in uu yahay farqi aad u weyn muuqaalka wejigeeda ka muuqda Sonal Leon. Sonal Leon oo aanan ku ekaanin kaliya filimada sameyntooda ee ah gabar ku caanbaxday modelka ama baxayeysiinta waxa ay alaaba jeceshahay in aysan without make-up aysan dhaqaaqin. haddaan intaa kaga gudbo atriishada caanka ee Sonal Leon waxaan barnaamijka daawadayaal kusoo gabagabaynaynaa atriishada daadiyar ee Katrina Kaif. Katrina Kaif waa gabadha kamid ah atriishooyinka Bollywood-ka kuna dhalatay magaalada Hong Kong ee dalkaasi Hong Kong kadibna oo hayaantay dalkaasi England oo ay ka haysato citizenship ama dhalasho balse ka tirsan atriishooyinka Bollywood-ka filimada ku sameeyay ee dalkaasi Hindiya maadaama ay asal ahaan ka soo jeedo dalka Hindiya. Katrina Kaif muuqaalkeeda idin muuqda waxa aad ka dheehan kartaan ama ka fahmi kartaan daawadayaal in uu jiro farqi marka ay marsan tahay make-upka iyo marka aysan marsanayn. ha yeeshee isticmaalka make-upka ma ahan wax ceeb keenaya amaba qofka lagu eedeyn karo waana wax loogu talagalay in qofka marka muuqaal laga duubayo loo mariyo si muuqaalada qofkaasi laga duubay ay u noqdaan kuwa qofka daawanaya uu ku dhiiran karo amaba jeclaan karo oo uu filimka ka caajizi karin. daawadayaal haddaan intaa kaga gudbo turukada amaba make-upka wejiyada ay marsadaan atriishooyinka Bollywood-ka barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. ha moogaanina inaad subscribe tirahdaan Saxafi Films si aad barnaamijyada xiisaha leh ee ka baxa Saxafi Films ula socotaan. inagoo isku duuban waa bahda Saxafi Filmsna waxaynu idinkaga tegaynaa intaynu dib dambe u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.